runtii maanta shacabka Soomaaliyeed waxay markhaati ka yihiin in golaha wada tashiga qaranka ballanqaadkii ay sameeyeen oo ahaa inay dhammaystiraan heshiiskii 17 September ay ku guuleysteen inay dhammaystiraan. runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo aan dib ugu noqdo 1 May oo aad xusuusan tihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda hirgelinta ama dhammaystirka 17 September iyo doorashada waddanka. madaxweyne aad u mahadsan tahay. waxaan u hambaliyeynayaa ra'iisul wasaaraha oo ku guuleystay in martiqaad uu u fudiyo madaxda dowladda goboleedyada ayagana sidaas oo kale waa u mahad celinayaa ayagoo ajiibay wax shuruudaan ku xirin maantana guusha aan ku fadhino. runtii heshiiskan taariikhiga ah wuxuu qayb weyn ka noqonayaa amniga shacabka Soomaaliyeed, wuxuu qayb weyn ka noqonayaa dib u dhiska dalka, wuxuu qayb weyn ka noqonayaa oo daawo u noqonaya khilaafkii dhacay. waxaan u mahad celinayaa madaxweynayaashii hore oo halkan soo istaagay oo runtii si qalbi furnaana uga hadlay yiri hal iscafiyo. mar rabi hadalka inaan ku dheeraado maadaama waqtiga uu gaaban yahay, maadaama aan ahay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaan rabaa labada gole golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka iyo golaha aqalka sare haweenka ku jira tiradooda 30% way ka yarta. waan ognahay annagoo dhan haddii maanta oo dhan qof walba mar soo istaago haweenka Soomaaliyeed kaalinta ay ku leeyihiin mujtamaca Soomaaliyeed lama soo koobi karo. haddii culimadaanada halkan ay soo istaagto waxay sheegayaan laga yaabaa dhammaantaannada inaan khushuucno haweenka guud ahaan oo Ilaaha abuuray, hadday hooyo noqon lahayd iyo hadday walaal noqon lahayd iyo hadday xaas noqon lahaydba mudnaanta ay leedahay. haddii ay noqon lahayd in suugaan iyo heese lagu cabirana waxaa laga yaabaa dhammaantaannada inaan khushuuci lahayn. madaxda dowlad goboleedyada waxaan u sheegaynaa dhammaystirka 30% dowlad goboleedyadii idinka horreeyey runtii aadaa loogu ammaanayaa ayagoo soo dhoweeyey taqriiban 28% iyo wax laag. aad iyo aad u mahadsan tihiin. waqtiga oo celiinaya waxaan ku soo dhoweynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo.